murashaxiinta kale ah Yuusuf Saciid Axmed oo u sharaxan golaha wakiilada Somaliland iyo murashax Cabdiraxmaan Axmed Aadan oo u sharaxan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa habeenkii xalay ahayd xadhiga ka jaray 7 xafiis. Xadhiga jarista xafiisyadan ayaa waxa ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Xamse Ciise Cabdi waxaana xafiisyadaasi laga hirgeliyay degmooyinka Koob iyo Soddonka May iyo Axmed Dhagax. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xafiisyadan ay murashaxiintu u idmadeen waxaana ka mid ah hadaladoodii musharax baan si gaar ahaan u salaamayaa Cabdiraxmaan iyo Yuusuf insha Allah bidmillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inaad xaafadan Koob iyo Soddonka May aad ka noqotaan labada waxaan ku ugu horeeyo insha Allah bidmillaahi kariim maxay hayto xildhibaanadeeda qaaliga Cabdiraxmaan iyo Yuusuf Saciid waxaan leeyahay soo dhawaada xafiisku xafiiskiini idinkaanini hawlanahay dhexdaan waxaan ummadii idinkaynii wada maxay hayto sacabtumayaan waxaan leeyahay welcome madaxaad noo saaran diroog casbaanu nin dhignay abidna saasaynin daba soconayna soo ballan ma hayna u codayno Cabdiraxmaan iyo maxay Yuusuf Saciid sarmina caawa 22 maalin 12 May ilaa 22 habeen meelaha ka harsan habeenka 12 May waa guriga ay ka soo amba bixi doonaan dhammaan dadweynaha ku nool degmadan xaafadan barka marka waa gurigii toddobaad waa labada xildhibaan ee isku tisidkan ee isku talaabada ah ayna cidna kula looltamayn dadka deegaankooga ee xaafadooda waxa la yiri goor gaaban erigeed gaaban waa iska xilli dambe aadna waan idinku mahadnaqaynaa xilliga dambe aad noo soo deegaankaba inaynu soo saarano inaynu dhibco fiican ka helo hadaynu ka heli weyno oo aynu maanta ka hadhno salaanka ka dhacno waxa la waxaynu nahay ma jirto xaafadana wada aragtaan Axmed Dhagax ma haysato laami ma haysato wax dawladeed marka wada aragtaan sidaynu nahay marka waxa loo baahan yahay ficilkeenu lahayn jirnay inaynu la soo baxno sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay murashax Yuusuf Saciid Axmed iyo murashax Cabdiraxmaan Axmed Aadan iyo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Xamse Ciise Cabdi oo uga mahadnaqay taageerayaashoodaasi sida ay ugu garab taagan yihiin waxaana ka mid ah hadaladoodii gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani oo aan ku soo dhaweynayna xafiiskan inuu xaliga inooga jarcaawa waxaan xaafadan ballaadhan oo taariikh weyn ku leh doorashooyinka oo codadkooduna ay aad u fiican yihiin dadka ku noolina dad ay aad u wanaagsan yihiin waxaanu ka rajaynaynaa inayna siin doonaan codkooda oo taageeradoodana la garab istaagi doonaan annaguna taa bedelkeeda aanu siin doono waxyaabaha ama waxqabadka ay u baahan tahay degmadan insha Allah tusaalahan xaafadan Cabdiidan waxay xaq u lahayd degmada in waaxda degmada halkan laga furo wata meel banaan baa laga kireeyo guri looga kireeyo meel banaan baa hadda la dhigay waxa soo dhan baan isku day doonaa inaan wax ka qabanno idinkana waxaan idinka codsanaynaa idinka rajaynaynaa inaad codkiina noogu hiilisaan maalinta 12 May astaantayaduna ama lambarkayga codayntuna waxa weeyaan 302 waxaanu ka mid nahay garabadii uu xisbigu ku duulayay oo hawlihii lagama maarmaanka qabanayay marka si aanu xaafadan iyo degmada Axmed Dhagax iyo 12 May guud ahaanba inta bulshadu ku nooshahay aanu wax uga bedelno waxaanu dadweynaha sharafta leh xaafadan aanu ka codsanaynaa inay noogu hiiliyaan codkooda maalinta 12 May maalmo yar ay naga xigaan ay doorashada u soo baxaan oo safafka xagga hore yimaadaan oo aanay cid ka horeynin Cabdiraxmaan baa ka waramay laakiin heer qaran waxaynu ka tabaynaa waa shuruucda anu waxaan ballan qaaday in shuruucda hadii aan leedmo waxa ay wax u qabsoomi waayeen waa fulin la'aanta sharciga dawladda hoose waxa uu qaban laaday waa wax weey la xisaabtan la'aanta shuruucda wasiirada iyo dadka ay doonayeen wax qabanay ay qabtaan ayaan insha Allah doonayeen in la xisaabtano madaxweynaha la xisaabtano miiska marka fadhiyo aan garaacana barka maxaa sharcigi noocaas nabarinta maxaa loogu dabaqilay waxaas xuquuqdooda ay u helayeen insha Allah waxaan ballan qaaday nacaaw kulli noqon mayno maxay ahayd qaar maanta doorataan idinku dambaysa sidii kuwii hore waxaan u shaqeyn doonaa waxaan ardaygi macallin nacnac ma garanaysaan nacnac baan aniga tababaray waxaan ahaa 2005tii ninkii ugu horeeyay musharax ahaa reerkeena laakiin uga tanaasilay muxuu ahaa nacnac 15 sano waxbaan ka baranay insha Allah inta uu nool yahayna waan ku xidhnaan doonaa inta wixii ka dambeeyana kulli talaabooyinkiisa iyo wixii aan ku kordhin karno xildhibaanadu waa aniguna insha Allah waxaan rajaynayaa sidaas la eg in magac wanaagsan aan kala qayb galo labada musharax
xildhibaan yuusuf siciid axmed oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Murudijeex iyo cabdiraxmaan axmed oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Hargeysa xafiiskoodii labaad ee campaign-ka ay ka furtaan degmada 13 May gaar ahaan degmada ay muxuu gaar ahaan xaafadda Cabdiida intii waxaa noo farxada inaan ka maanta aan furno caawa xafiiskii toddobaad ee labada musharax isku sidkan yuusuf siciid axmed iyo cabdiraxmaan axmed runtii labada musharax ma aha laba musharax oo qurbo jooga waa laba musharax oo qolqol jooga taa waxa weeyaan waxaan aaminsanahay haddaad tihiin ree aadani baha cumar waa mid aad dadka dheer tihiin waxaan aad iyo aad idinka codsanaynaa inaad u codaysaan 302 oo cabdiraxmaan ah iyo yuusuf siciid oo rikoodha waa laba inan oo dhalinyaro ah waa laba inan oo runtii aqoon-yahana insha Allah bidilaahi kariim waxaan rajaynayaa inay wax badan inoo qaban doonaan yuusuf siciid waxaan aaminsanahay inuu noqon doono xildhibaankii nacnac inoo bedeli lahaa nacnac waxa weeyaan waa xildhibaanka kaliyaata ee waxaan kuuray aan isleeyahay degmooyinkan Axmed Dhagax iyo 13 May buu dhashay ee runtii xaafad kasta wada kasta inoo qabtay waa xildhibaanka kaliya tan isleeyahay waxba inoo qabtay yuusuf ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu inoo noqdo xildhibaankii bedeli lahaa cabdiraxmaan maanta golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa beelahan cid inooga jirta nin la xusi karo la oran karo ninkaas wax inoo qabtay way raatay ma jirto waa cid aan isleeyahay weyn meeshan ka goblamnay oo halka waxaan leenahay hadaba ragga dhalinyarada aynu soo saarno ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Murudijeex iyo labada murashax ayaa si wada jira xariga uga jaray toddobadaasi xafiis